السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta idin wadaa waxaan hore aan hore usoo dhigi jirin meeshaan maanta aan idin wadaa sheeko ka dhacday Mareykanka. adoo waxay ka dhacday 2000kan waqtigan ku bilaabmay sheekadu ka dhacday gabadh baan ku saabsan tahay sawirka markaan soo gelisaan ku arkaysaan gabadha runta ay sheekada isku dhacday weeyaan. waana sheeko runa waxaan kasoo dhageystay isagoo buuxa qaybta maxaa youtube-ka qaybta dhageysiga daawasho meeyo qayb baa jirta dhageysi waxaad ka dhageysanaysid sida raadiyo oo kale marka gabadhani waxaa la yidhaahdaa Olivia iyadoo 22 jira ba waxaa ka dhintay hooyadii aabaheed baa ka dhintay. hooyadii aabaheed markay ka dhinteen waxay la soo kortay eedadeed anti. marka qolyahan reer galbeedka anti habaryarna way yidhaahdeen eedana way yidhaahdaan. marka antidii anigu waxaan kala garan waaye ma xagga aabaa mise waa xagga hooy. adigu anti waa habaryar ama eedo halkaas inagu kaga hadhayna. waxaa dhacday marka inantii markaa waxay samaysay way weynaatay jaamacadii waxbay kasoo baxday way shaqaysatay. waxaa jirta dee maxaa dhahdaa wadamadan waxaa jirta waxa la yidhahdaa amaah mortgage bay qaadatay. guri bay iibsatay 2 qol iyo fadhi baan malaynay tiri 2 qol iyo fadhi bay iibsatay. gurigeeda siskaga nooleed waana shaqaysanaysay waa inan habiya. dabeetana maalin maalmaha ka mid ah bay waxay israaceen saaxiibadeed waxay tageen meel laga soo casheynayay iyo dee dadka dhalinyarada ku kulmaan meel baara. marka nin bay maxaa dhahday group kale lala kulmay waa la iska sheekaystay. adigu marka dadku dee bilaadanku markay maaragtay meel ku kulmaan kolba laba iska hesha moogta laba dee maxaa dhahday isugu dhacdaa. marka iyada nin baa ay iska helay. ninkii baa la iska sheekaystay ninkii baa sheekadu isugu dhacday. ninkii baa maxaa dhahday adigu muddada sheeko yar u socotay xoogay sheekadii markii muddo yar u socotay way ka heshay. ha ka heshee meesha waxbaa soo socda. qisadan waxaan rabaa halkaasan yar dhexdan wax yara gelinaya qisadan waxaan rabaa qof kastoo Soomaaliya ama wiil ha noqdo ama gabadh ha noqdo waa inuu horta hoos sheekadan ka yara bartaa. waxaa jirta bilaadanka wax ilaahay nagu abuuray especially dumarkii u badan tahay especially qaybta noocani dumarkii ku badan tahay laakiin way iska dhagatiraan waxaan waa sheedaan weyn. waxaa jirta qayb baa kugu jirta oo maxaa dhahday ku siinaysa red flag bay ku siinaysaa. laakiin maxaynu sameynayna inagu waxaan waa sheedaan weeyaan sheedaankaas ka naaraysaa dadtana wixii baad ku dhex dhacaysa hadhowta adoo haadaan ka dhacayo dhibaato cagaha kula jiro sarkaysa. instant bay yidhahdeen qolyahani waxaweeye waa wax ku jira ilaahay kugu abuuray. waxaasaad arkaysaa qof baa kula kulmay matalan qof baa matalan kula kulmaya qofkiibaa qayb ka mid jirkaagu ku odhanayaan qofka waxbaa ka siiya ama been buu kuu sheegaya ama wuu ka khiyaaminaya waxbaa jirkaaga ku jira kuu sheegaya. waxaa wax kuu sheegaya adiga ee dareenka ku gelinaya ee damiga iyo ku gelinaya shaki ku gelinaya waa wax dhaba waa wax ilaahay kugu abuuray weeyaan. waliba dumarkii u badan tahay adhono raggu inay leeyihiin baan u malaynay laakiin dumarkaanu baa sheekada sidan instigan ugu maxaa dhahday dumarkii u badan tahay saasay u eegaysaa. ama dee qof dumaroo
أستراهدين وحوض قفصوش شغال وضع قفصوص وتكشكيسة وكو قيامينيسة أما وحني سمينيسة وحا كوكوله أديقة قلبك كاغو صور دعي وإنا درومي ستيد because هو وحي لهاي كوكو أبوري وكو ديقة يوحن instead بيد هذا قوليها instead بيد هذا marka haddaad qaybtaa kuu sheegtay waxan ka joog ama qofkan uu ku khiyaameynaya ama qofkan uu ku dhibaateynaya ama qofkan uu ku hagaardaameynaya qof haddii waxaasi kugu soo dhacdo waa inaad maqashid waa inaad rumaysatid waayo waa naftaadin weeyaan mogta dadtan waa in wixii dib uga joogtid marka qaybahaasaa ku dhex jira mogta adigu sheekadan dib ugu soo laabanayaa gabadhiiba waxaa dhacday ninkii bay isbarteen ninkii markay isbarteen adigu sheekadooda wax yar bay socotay 2 bilood meelaha miyaa toro waxba socotay marka ninka wuxuu sameeyey intaanu guursanin qofka khaayinka waa dareemaysa intaanu guursanin buu wuxuu sii wadiyey maxaa dhaqtaa su'aalo guriga markay yimaadeen gurigeeda yimaadeen ayay maxaa dhaqtaa ayay gurigii buu saa u eegayo markaas wuxuu ku yiri gurigan ma adiga hale mise tiri may markaas wiya hale gurigan mise tiri antidayda hale bitiri habrtay ama ito mid ugu jido oo xagee joogta antidaada ayuu baxna markii joogta way xanuunsanaysaa meelaha dadka xanuunsanaya lagu hayay joogta ha okay halkii buu maxaa dhahdaa gabadhii guur maxaa dhahdaa wax mayo intaanu guursanin baa wuxuu keenay hooyadii guriga keena hooyadii guriga markuu keenay ayaa gurigii baa la indhendheeyey hooyadii baa inanta wareysatay oo guriga yaa iskale su-aashii isagu weydiiyey hooyadiina weydiisay gabadha markii ugu horreysay ninku markuu wax weydiinay shaki gala waxbaa ku yiri gurigan ha odhan anigaa le eeg haddatay gurigan ha odhan anigaa le waxaa tirada maxaa antidaydaa le sidii markii ku tiri anigu malihi eedaday baa le ama habareetay baa le sidii buu maxaa dhahday ugu sheegtay islaantiina inaan ka dhashay hadda weli ismay guursanin hooyadiina meesha timi gurigii bay indhendhaysay gurigii bay saa u eegtay gurigii bay indhaha la raacay waa laga helay show maxaa dhahday meesha wax kale ka socda inantii waxay ku adkaysatay guriga anigu malihi habareetay baa le ama eedadii antidaydaa le ayay ku adkaysatay waxbaa ku soo celceliyey gurigan ha sheegin inaad adigu leedahay ka war dabeetana adigu inantii ninkii way iscalfadeen waa la isguursaday markii la isguursaday ayaa waxaa dhacday yara suga waxyaarba halkan ka dhacay sorry markii la isguursaday inantu way ka heshay ninkii maxaa dhahdaa wuu isu duldhiga dhulku isu dhigay markii dhulka la isu dhigay gabadhii iyadu laakiin waxay ku adkaysatay in iyadu guriga aanay lahayn antideedu leedahay saasay ku socoto horta arooskii waa isoo sheeka dhaafay meesha mucjisooyinka ka dhacday habeenkii arooska markuu aroosku dhammaaday ee gurigoodii tageen ayaa waxay tiri telefoon baa soo dhacay 7 o'clock in the morning iyada telefoon mobilkeedii baa loo soo garaacay telefoonkii bay qabatay waxay tiri hallow waxaanu nahay shirkadda noocaas ee guryaha iibisa soo heblaaye hebel ma tihid markaasay tiri haa markaasay ku yidhaahdeen gurigaad iibin rabtaa baa layidhi caynkan mase tiri may anigu guriga ma iibinayo idin lamana soo hadlin markaasay ku yidhaahdeen adigaa meeshaas ku qoran magacaaga saddexan gurigii oo dhan waxay oo dhan gurigaad rabtaa inaan lagu qiimeeyo gurigaad qiimihiisii waxa aan guryahan qiimeynaa guryahan adigu way xayeysiin shirkadii waxay ku tiri listen anigu idinlama soo hadlin idinlama soo xidhiidhin gurigan iibinayana meesha ma yaalin telefoonka iska dhigtay gabadh shaki baa yara galay dani baa galay way iska kacday waxay tiri anigoo kacay waxay tiri jikada jooga
ay xitay kafeygii baan iska karsaday kafeygaanoo karinaya ayuu dee ninkeedii soo kacayo xagga dhabarka kaga yimiyo uu hag busiyeyo monikis busiyeyo dabeetana markaasi waxay ku tiri telefoon baa saakay soo dhacay xabiibay ku tiri haye oo telefoonka haya waan la yaabana telefoonkaasoo waxay igu yidhaahdeen gurigaan u qiimeynaynaa oo guriga maxaan dhahdaa aada iibinaysaa baa layidhi aniguna cidan la hadlay iyo gurigan qiimeynaya toona ma jirto anigu guriga mabalihiiba dee guriga maxaan u qiimeynayaaba tiri markaasuu yihi laga yaabaa maxaan dhahdaa inay mistake tahay wuu qabaystay wuu quraacday wuu iska tegay shaqadiisu iska tegay shaqadiisii markuu tegay ayaa waxaa dhacday maxaan dhahdayey gabadhii danigii baa kusii batay danigii markuu kusii batay ayaa waxay samaysay markuu tegay bay telefoonkii laga soo garaacay dib u garaacday waxay tiri yaa idila soo xidhiidhay waad waxay wareysatay shirkadii bay maxaan dhahdayey way ka yeer waa shirkadii waxay dhahdeen aniga maxaan dhahdaa adaana ku qoran meesha nala soo xidhiidha caynkanka oo waxa markii hore nagu soo kaa xidhiidhsiiyey qofka isku keen xidhiidhsiiyey waaya bay ku tiri mogta markaas waxay ku yidhaahdeen waxa isku soo kaaya xidhiidhsiiyey your husband ninkaagii ninkaaga ayaa nagu soo kaa xidhiidhsiiyey yidhi gurigan gabadhi way rabtay inay iibiso waxay tiri maay shakii gabadhi wuu kusii batay shakigii gabadhi markuu kusii batay way iska dhigtay waxay tiri maxaa laga yaabaa inuu rabo midha guri kale iyo waxaa deetana inuu gurigan la iibiyo guri kale la iibsado guriga waxa inkaasta midhaawi rabaayo laakiin guriga anigu male waxay ku adkaysanaysaa gabadhani anigu guriga melihi kadib ninkii baa soo noqday ninkii bay wareysatay waxay ku tiri war waa maxay gurigan maadaa la hadlay markaasuu yiri dee maya gurigan maxaa dhahdayey haa anaa la hadlay buu yidhi maya marka waxaan rabay dee antidaada gurigan loo qiimayn waar guriga dee anti anigu malihi antidayduna muga maqan tahay qof aan gurigiisii aanu rabay inuu iibiyo sideebaa loo iibinayaa ya marka sheekadii waxay socotaba adigu gabadhi danigii baa kusii batay maxaan dhahdayey research bay samaysay researchkii markay samaysay baa waxaa dhacday waxay samaysay gabadhii intii oroday bay maxaan dhahaa saaxiibadeed bay la xidhiidhay waa la baadhay ninkani wuxuu doonayo iyo waxay rabaan maxaa dhahdayey iyo meeshii backgroundkiisi iyo wixiisii oo dhan bay gabadhan aada u dabagashay markaa horta hooyadii waxay ahayd dadka looyarada bay ahayd oo retire ka noqotay markaa backgroundka reerkan lama yaqaano waxay soo ogaatay gabadhii markii shakigii ka batay iyo ninkan oo ku bushgaraynaya iyo islaantii iyo halkan iyaduna kasoo gashay sheekadii reerku is cadday inagu gurigaan iibino gurigan sidaa la sameeyo gurigan sidaa la sameeyo iyaduna waxay taagan tahay guriga anigu melihi habaritay baale mana iibinayno habaritayna way xanuunsanaysaa maxay sameeyeen ilaa habari jirta maaha dee habaryatan dee guriga ma laha habaryatu way jirtaa laakiin gurigan maba lahaba talabaad waxay dhahdeen the auntie is not exist habari jirtana maba haba midha waa habare intii inantu soo korsatay intii labeelatashii la nooleyd ay haddana midha ka tagtay adduunyada waa dhimatay marka completely habaritu habar jirtaba ma ahaba maxaa la sameeyey waxay baadheen wadanka iyo eriyada ama area degan yihiin inta dhakhtare ku taalla inta keerin ku taalla inta meelaha dadka lagu hayo oo dhan magacii bay shiraadiyeen magacii bay kasoo qosteen waa la waayay nag iyaduna xaggana wax ka baadhaysa iyaguna xaggana wax ka baadhaya bal adigu dhibaatada idinku eega iyadu markii maxaan dhahdaa waxa usoo ogaatay inanay saaxiib yihiin baa usoo ogaatay waxay soo ogaatee ninkan iyada guursaday wuxuu soo furay dhowr dumara 4 dumara 4 dumarana mid waliba gurigay lahayd iyo adduunyada lahayd intuu ka iibiyey buu cidla kaga dhaqaaqay u fur waxaasoo dhan baa laisqoo fogay
shaki baa markaa gabadhii kasii buuxsamay shaki ayaa gabadha sii galay yaab waxay tiri war baladan aada u soo gashay waa maxay marka inta dambe inta ugu macaana way dambaysaa bal intanina ka hesheen iyo in kale maxaa dhahday waan idii soo taxanaa idii ka dhigayaa qaybtii koowaad waa taa waan idii sii wadaya haddii ilaahay ka dhigo dee khayr baan idin rajeynayaa dee bal like-na saara bal commentna ii soo dhaafa haddaad ka hesheen iyo haddii kale maca salaama